يا خالق الإنسان اغفر جميع ذنوبي يا مدبر الأكوان يا ربي يا رحماني يا خالق الإنسان اغفر جميع ذنوبي يا مدبر الأكوان أشكي عليك أحوالي وانت الكريم العالي أصلح جميع أعمالي بالنور والإيمان أشكي عليك أحوالي وانت الكريم العالي أصلح جميع أعمالي بالنور والإيمان يا ربي يا رحماني يا خالق الإنسان اغفر جميع ذنوبي يا مدبر الأكوان يا ربي يا رحماني يا خالق الإنسان اغفر جميع ذنوبي يا مدبر الأكوان الروح لك محتاجة ما لي بغيرك حاجة أنت الآمل وفراجة يا منزل الفرقان الروح لك محتاجة ما لي بغيرك حاجة أنت الآمل وفراجة يا منزل. بسم الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ولا ليق قالي وإذا السلام وحن ذي رجينا يا نبذين حريص ذو دنتين ولا شين حياة إذن الله مركل يكون أنت وعنك سوي هذا الشانل كيجا ما أنتو حروا عبتان إن إذن لو ذاقو ما شاء الله عنكو نقونا ساعة في ما أن له بإذن الله الكريم هل كان باباي أيامكو هستا ولا ليق سيداد أركي سامبا إن شاء الله وعن باباي إن شيحرون وايه أو يعني إن حباد شيحيدة إن شاء الله أو دحدحاد xabada aad uma weyna waa size dhexe hadda waxaan ku ridanayaa sidaad arkaysaanba mashiinka aan ku shiidi lahaa cabitaanka ama smoothiga biidnillah cabitaankan maasha allah waxaad kaga kaftoomaysaa cunno waa cabitaan healthy ah booska cunnada ku buuxinayo insha allah hadda caano ayaan ku darsanayaa sidaad ujeedaan caanaha iyo babaayga sonkor kuma aanan darin labadaba insha allah bilaa sonkor ayaan ku shiidayaa maadaama babaayga uu macaan yahay insha allah subaxii hore waa sameysan kartaa habeenkii waqtiga dhexe ee galbihii nooc uu diidaya malahan insha allah waqti walba waa sameysan kartaa biidnillahi alkariim hadda waan shiiday walaaleyga qaaliga ah waan ka rogayaa sidaad arkaysaanba ama waan ka gedisanayaa mashiinka insha allah wax kale ayaan rabaa inaan ku shiida haddana inta aan soo meero ama aan soo dhaqo insha allah bakeeriga yar ayaan soo diyaarsaday oo aan ku shubayaa biidnillah siduu rasiin u yahay waad ujeedaa sidaas oo kale ayaa la rabaa inuu yacni adeeg kugu ahaado biidnillah alkariim mashiinka waan iska soo dhaqay labada bakeeri yaryar ayaan ku shubay babaygii aan shiidayay haddana waxaan ku shubanayaa sidaad arkaysaanba avocado waa jeex iyadana avocadada waa jeex iyo jeexa kale barkii insha allah xabad ma dhamo kas yar ayaan ka reebtay oo hadhow aad arki doontaan waxa aan ku sameyn doono hadduu rabbiga awoodale inoo saamaxo avocadadana caano yar ayaan ku daray iyadana sidaad arkaysaanba walaalahayga qaaliga ah waad arkaysaan ayaan filayaa si wanaagsan marka hadda waan shiidanayaa sidaad ujeedaanba avocadada wax yar oo sonkor ayaan ku darsan doonaa iyada biidnillahi alkariim waana ila arkaysaan inta aan ku daraayo hadduu rabbiga awood ii saamaxo haddana walaalahayga qaaliga ah waxaan ku darsanayaa sonkor sidaad arkaysaanba malqaacada yar mugeeda oo 2 jeer ayaan ku darsanayaa ama 2 malqaacad oo tablespoonka ah insha allah soo marka maadaama avocadada aan jecleen sida ay u dhadhanto marka waxaan jeclaa inaan wax yar sonkor ah aan ku yacni daro si aan dhadhankeeda tasti yar aan ugu yeelo marka maadaama aanan babaayga aanu ku darsan wax sonkor ah marka avocadada waxaan jeclaa inaan in yar oo sonkor ku darsado marka anyway walaalahayga qaaliga ah smoothigan wuxuu ku noqon karaa cunno oo waxaad kaga kaaftoomaysaa cunnada booskeeda insha allah haddii aad tahay qof diet ku jiro oo rabo inuu miisaan iska dhimo waxa aad sameysan kartaa cabitaankan isla mar ahaantaana ku noqonayo cunto oo yacni 2 in 1 ah ama 1 in 2 ah insha allah
marka walaalahayga qaaliga ah markii waxaa wanaagsan weliba aad sameysanaysid in aad subaxii yacni samaysatid xilliga quraacda oo yacni booskii aad cuntada ka cuni lahayd markii aad yacni quraac aad rabootid inaad cuntid isaga inaad samaysatid ayaa wanaagsan marka insha allah walaalahayga qaaliga sidaa ila socdo caruurtana u sameeya ayaan idin dhihi lahaa biidnillaahi alkariim. haddana koobkan kale ayaan soo diyaarsaday waxaan ku shubanayaa afakaadhihii sidaad arkaysaan afakaadhada iyadana waxaa waaye waa rasiin oo aad ayay yacni u culus tahay ma jilcinin sidaad arkaysaanba soo marka inaan jilicda ma doonayo waan arki doontaa sida aan u sameynayo walaalahayga qaaliga ah maadaama cuno ahaan laga rabo cabitaanka maanta cabitaan ahaanna uu yahay isla mar ahaanta marka insha allah inuu sidan u adkaado ayaan doonayay waana ila arki doontaan hadduu rabbiga awoodale inuu wada saamaxo insha allah. intaa kadib walaalahayga qaaliga ah waxa aan soo diyaarsaday koobabkii aan ku diyaarsan lahaa smoothiga insha allah halkan waxaan ku haystaa chia seedka waxaa waaye caano ayaan kula dhigay inta aan ku qasay soo marka 5 saacadood ayuu fridge-ka iigu jiray sidaad arkaysaanba chia seedka aad ayuu yacni u faa'iido badan yahay oo vitamins badan ayaa ku jira maasha allah waana ogtihiin walaalahayga qaaliga ah dadka iscaateynaya aad ayuu ugu fiican yahay sidoo kale dadka wadna xanuunka qabo maasha allah chia seedka lagama sheekeyn karo ama lama soo koobi karo waxtarkiisa iyo helsigiisa aad ayuu u wanaagsan yahay marka walaalahayga qaaliga ah waxaan idin dhihi lahaa isticmaalkiisa badiya oo yacni isticmaala biidnillah marka cabitaanada aad ku darsanaysaan oo kale insha allah sidoo kale boorashyadan waa lagu darsadaa yacni wax uu diidaya ma lahan rootiga xitaa markii aad dubaysid korka ayaa kaga darsan kartaa booska sisinta iyo xabasowdada aad kaga daray sidoo kale ayaad korka kaga darsanaysaa marka insha allah dhowr si ayaa loo isticmaalaa waana idin soo gelin doonaa insha allah siyaabaha loo isticmaalo hadduu rabbiga awoodale isaa. intaa kadib haddana walaalahayga qaaliga ah step 2 ayaan galayaa oo babaygii ah qeybtii labaad ee aan yacni dhexda gelin lahaa ama dhexda aan marin lahaa ayaan imikana ku shubayaa sidaad arkaysaanba waa camba babaygii aan soo shiidayay ama babaay hadba saad u taqaanaanba walaalahayga qaaliga ah marka sidaa ayaan ugu soo wadayaa oo waxa aan kusoo wada shubi doonaa yacni koobka oo dhan ayaan ugu soo dhammaystirayaa si isla eg ama si isku wada mid ah insha allah marka walaalahayga qaaliga ah ila socod wanaagsan ayaan idin leeyahay aad ayaad ugu mahadsantihiin daawashadiina wacan mar walbo kama daalay inaan idiin mahad celiyo biidnillahi alkariim aad ayaan idin jeclay axbaabi dar ilaahay ayaan ku walaalownay marka insha allah walaalahayga qaaliga ah waxaan idinka codsanayaa haddii aad yacni igu cusub tahay adiga hadda i daawanaya inaad subscribe ii saartid channelka isla mar ahaantaana si aad iila socotid gambaleelka furo biidnillahi alkariim si mar walba video markii aan soo geliyo uu kugu soo dhaco gambaleelka oo markaa yacni aad u noqotid qofka u horeeya ama daawadaha ugu horeeyo biidnillahi alkariim sidoo kale fideoyadeeda haddii aad ka heshid like saar liketa waxay iga caawinaysaa muuqaalkayga dad fara badan inuu gaaro walaalahayga qaaliga ah wixii ra'yi ah ama su-aal aad qabtidna iigu reeb meesha commentiga waan kaaga soo jawaabi doonaa hadduu rabbiga awoodale ii saamaxo. haddana insha allah axbaabii qeybta yacni u sareyso ayaa waxaan saaranayaa waxyaroo furuuda insha allah oo ka kooban xabxab ama yacni qare insha allah iyo muus ama moos sidaad arkaysaanba koob walbaba waan soo saarayaa biidnillahi alkariim si yaroo yacni sharaxaad qurux badan ah maadaama yacni smoothigeena maanta uu yahay smoothie culus oo cunno ah fruudkan waad ku cuni karaysaa insha allah oo ma diidayo oo yacni waa loogu talagalay marka cabitaanka markuu yahay cabitaan culus oo yacni oo fadhiya furuudka waad ku sharaxan kartaa oo waad yacni xitaa qeybta dhexe waad ku darsan kartaa furuud oo waad dhexgelin karaysaa insha allah oo ma diidayo waa isqaadanayaan laakiin cabitaanka hadduu jilcan yahay furuud ma saari karaysid insha allah marka walaalahayga sidaa waxaan rajeynayaa inaad ula socotaan xagga hoosena waxaan soo saaray waxyaabihii aan smoothiga ka diyaariyey oo yacni furuud ah si aad u fahantaan ama loo fahmo waxa laga sameeyey cabitaankan marka haddana walaalahayga qaaliga ah meesha kore waxaa haddana ka yara saaranayaa chia seedkii si yaroo yacni sharaxaad ah si qurux badan ayuu markaa ugu soo bixi doonaa ugu dambeyn waana arki doontaa siduu kusoo baxo oo yacni maasha allah tabaarakallah ah indhaha soo jiidanaya
marka walaalahayga qaaliga ah waad arkaysaan ayaan filayaa sida aan usoo saarayo chia seedka marka caanaha ku qastid yacni wuu isjijiidanayaa oo wuxuu noqonayaa wax yacni aad softi u ah oo jilcan oo isheesheysta marka waad dareemeysaa runtii iyo gabagabadii walaalahayga qaaliga ah markii aan soo idleeyay ama aan soo dhameeyey cabitaankeeni maanta isla mar ahaantaana cunada inoo noqonayay sidan ayuu kusoo baxay maasha allah aadka u quruxda badan ayaad arkaysaan indhihiina ayaa idin macalin ah ayaan filayaa walaalahayga qaaliga ah maasha allah cabitaankan caafimaadkiisa lagama sheekeyn karo fitamiiniska ku jira iyo maasha allah waxyaabaha aad ka helaysid calciumka borotiin maasha allah wax walbo ayaa u dhameystiran oo yacni fitamiinaad ah nooc walba uu fitamiinis yahay marka insha allah siduu u qurxan yahay ayuu jirkaagana ka dhigi doonaa walaalahayga qaaliga isla ogaada ayaan idin leeyahay sidoo kale caruurihiina u sameeya oo caruurta aad ayay muhiim ugu tahay maadaama ay yihiin ubax soo koraayo waa in yacni la ogaadaa koriimadooda cunno isku dheelitiran la siiya iyo casiiro kala duwan maasha allah si ay ilmaha u noqdaan ilmo yacni lafta ka koray maasha allah marka walaalahayga qaaliga ah waxaan rajeynayaa fideogeyga maanta inaad ka hesheen oo yacni aad wax un ka faa-iideen maasha allah waxaan rajeyn doonaan asxaabtiina in aad lasii sheergareyn doontaan idinka unaad isku koobin biidnillaahi ilkariim marka insha allah inta aan muuqaalka lamida aan ku kulmi doono hadduu rabbiga awooda leh nafta ii saamaxo insha allah waxaan idinku dhaafayaa walaalahayga qaaliga ah sidaa iyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu inta aan haysan waxyaabo ee cunaan insha allah rabbi subxaana watacaala ha siiyo mar walba ducada ku xasuusta walaalaheena muslimka ah ee aan haysan waxyaabaha yacni anaga aan maanta haysano insha allah wixii markaa sadaqa aad dhiiban kartidna waxaan kugula talin lahaa inaad dhiibatid walaalahayga qaaliga ah sidaa iyo assalaamu calaykum